madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa goordhow u duulay wadanka Imaaraadka Carabta waxaana safarkiisa ku weheliyay wasiiro iyo saraakiil kale oo ka tirsan maamulkiisa. Madaxweyne Dani ayaa Imaaraadka ugu dhoofay sidii uu kulamo ula soo qaadan lahaa madax ka tirsan shirkadda DP World ee maamusha dekedda magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. Waxa uu si gaar ah diiradda u saari doonaa dhinacyada amniga, kaalmada bini'aadamnimo iyo mashaariicda horumarineed ee uu Imaaraadka ka fuliyo Puntland, iyadoo sidoo kale uu la soo kulmi doono jaaliyada Puntland ee ku dhaqan magaalada Dubai. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sidoo kale madaxda DP World kala hadli doono warbixin ku saabsan macluumaadka hordhaca ee la xiriira weerarkii lagu dilay madaxii DP World ee dekedda Boosaaso kaasoo u dhashay wadanka Malta. Villa Soomaaliya ayaa si gaar ah isha ugu heeso socdaalkani, iyadoo arintani ay banaanka u soo saartay inaysan isla jaan qaadaynin Puntland iyo madaxtooyada Soomaaliya. Madaxweyne Dani ayaa la filayaa inuu sidoo kale u sii gudbo wadanka Shiinaha isagoo kala soo hadli doono mashaariic la xiriirta kaabayaasha dhaqaalaha oo shirkado Shiinees ay ka hirgelin doonaan gudaha Puntland. Safarkani ayaa ah kii ugu horeeyay madaxweynaha Puntland uu ugu dhoofo dalka dibadiisa tani markii la doortay 8 bisha January ee sanadkan 2019. Ismaan Aweys Bahar, telefishinka caalamiga Janaawkey, Muqdisho.